waa maxay xisbi siyaasadeed xisbi siyaasadeedka dimuqraadiga ahi waa hay'ad ay ka wada muuqdaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo leh aragti iyo qorshayaal siyaasadeed oo ku saleysan isla xisaabtan dhab ah xisbigu wuxuu leeyahay musharaxiin ka qaybgalaysa doorashooyinka guud kuwaasoo markay doorashooyinka ku soo guuleystaan ka qayb noqda dhismaha xukuumadda waxa kale oo xisbigu noqon karaa mid mucaarad ah haddaba waa su'aalay yaa qaadan kara magaca xisbi siyaasadeed xisbi siyaasadeed waxaa loogu yeeri karaa xisbiga diiwaangelin ku meel gaar ah ama mid rasmi ah ka haysta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka diiwaangelinta waxaa caddayn u ah shahaado saxiixan oo shaabadaysan oo ka soo baxday xafiiska diiwaangeliyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka diiwaangelinta xisbiyada waxa ay maraysaa laba heer oo kala ah heerka koowaad oo ah diiwaangelinta ku meel gaarka ah iyo heerka labaad oo ah diiwaangelinta rasmiga ah xisbiyada waxaa diiwaangelinta ku meel gaarka ah loo siiyaa si ay ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta rasmiga ah xisbina doorashada kuma geli karo diiwaangelinta ku meel gaarka ah yaan ka mid noqon karin xisbi siyaasadeed xubnaha ka reeban in ay ka mid noqdaan xisbiyada siyaasadda waxaa ka mid ah ciidamada qalabka sida garsoorayaasha maxkamadaha dalka diblomaasiyiinta ama howlwadeennada safaaradaha iyo dhammaan shaqaalaha dawladda waa maxay muhiimadda xisbiyada siyaasadda muhiimadda xisbiyada siyaasaddu waa wacyigelinta dadweynaha iyo la xisaabtanka dawladda soo gudbinta musharaxiinta iyo u fududeynta codbixiyaasha doorashada xisbiga uu doonayo sidoo kale xisbiyadu waxay codka dadweynaha gaarsiiyaan dawladda tirada xisbiyada samaysmi karaa ma xadidan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ma xadidi karo tirada xisbiyada siyaasadda waayo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu muwaadin kasta xaq u siinayaa in uu samaysto ama ka mid noqdo xisbi siyaasadeed hase ahaatee taas macnaheedu ma aha in qof kasta uu xisbi siyaasadeed iska samaysan karo shuruudaha iyo xeerka diiwaangelinta oo la adkeeyay awgeed